soo qortay rag iyo dumar bale waxaan ku waanin lahaa inay suuradda aad u akhristaan suuradda inay in badan ku celceliyaan li'annahu waxay shifaa u tahay oo caafimaad ka tahay oo xirzi ilaalana ka tahay kii ay ku dhacdayna ay caafimaad iyo shifaa u tahay dhammaan amraadda hadda iyo cudurrada laga sheeganayo ee kala duwan de sheekha aan idiin sheegayana min baabi istinaasihi iyo tafahumihi iyo tadabburkiisa ayuu yidhi anigu waxaa aad iila muuqata annaha shamilat cudurkan la garan la'yahay ee meel loo dhiga la la'yahay ee caalamkii oo dhan ka wareeriyey ayay soo gelaysaa buu yidhi wa min sharri ghaasiqin idaa waqab nabiguna calayhi salaatu wasalaam weligii kama tegin baa layidhi habeenka markuu seexanayo xataa markii uu fii sakrati lmowti ahaa oo uu isagu uusan akhriyi karin ummana caaisha radiallahu canha zawjadiisaadi waatay intay u aqriday waxay tihi weliba gacantiisa gacmihiisa libarakatihaa ayaan ugu tufay bay tihi markaasaan u mariyey jirkiisii calayhi salaatu wa aska asalaam marnaba inaan laga tegin horta markaad seexanayso saddexdaa suuradood qul huwa allahu axad qul acuudu birabbi alfalaq qul acuudu birabbi annaas oo jirka aad ku masaxdo waxaan kaloo idinku waaninayaa في بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام ثوب كيس يقويس يمشي كساحده كأنه ثوب زياد سليد كان إبيو كلام من كثرة سليد فوائد باكو جرته وين سليدة ولي خاصة تن زيتون كأه إلهي وسجارة بركة هذا القرآن كإلهي وشاقي وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين آية النور وكشاقي سبحانه وتعالى وشجرة مباركة إلهي وكتل مامي زيت كذا لغميري وزيت بركيسا إن أي عادة إنه نقطه إن أنه جرك نكون مسحنه إن شاء الله تعالى زيت كاس سليد دا قراكو أقرني وجرك هذا مرسي وحضر إن شاء الله تعالى نبدأ بيسوق أركم يسد بإذن الله تعالى لكن ديدا إعادة كله ومن السنن المتروكة يكملتها السنن اللي كده أي كملتها لكن شيخ عبد الرزاق وحن عصوصته أبا شعر سوف رحمة الله عليه ولقيها بين سجون سليد برسل مسحا ما رأيته قط في حياتي بدون أن جركي صور لن أوسن سليد مرن سوى ساعة ولي معه ففيها سر عجيب نور كبير نواسلاس ما ينام أبدا إلا بالزيت جركي صور ما قالت وحاوي فوائد فربضن باكو جرا خير فربضن بانو كأرقني قال إن شاء الله تعالى سورة ذها سدح ذا سورة ذوت خاصة سورة الفلق قفكي سيجار عذر وغشيغانية أنا وحاولنا لها وردي بكدي قبا أفرتن قور أخري بقول قور أخري سدح بقول يسدح يتمن بفوائد بدن بالغو شيغا أخري إن شاء الله تعالى لبودن أركي ميسد حرزنا ويكون قوليشا بإذن الله تعالى قرآن كفوائدي سلم كوبي كرو هذا نقطة استشفاء هذا نقطة سلامة القلوب يا قلبي جاga oo ku nuuray ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigaaga nuur u galiyo hadii ay ku noqoto quwwa iyo xoog shaqada aad qaban doonto waxay doonto baa noqoto macallim noqo hooyo gurigeeda dhaqaysay ilmaheeda waxa doonto noqo